dawladdu ka jawaabaysa taas inaanay cadayn u noqon karin Cabdimaalik waxa ay soo qaadatay sawirkan aad halkani ka arki kartaan waxa uu ku kooban yahay oo kaliya ta inuu la dagaalamo tacliinta reer galbeedka mise waxa uu hayaa tabtii dariiqyadii ay qaadi jireen urur diimeedyadu magaca Boko Haram wuxuu la micno yahay tacliinta reer galbeedku waa mamnuuc ama waa xaraan dimuqraadiyadu waa gaalnimo aan wax shaki ah ku jirin waxa uu gaaleeyay baarlamaankii oo ku sheegay inay yihiin gaalo sidoo kale Cabdimaalik waxa uu gaaleeyay oo uu sheegay inay ilaahiye u haystaan kuwa baarlamaanka ah dadkii shacabka ah ee soo doortay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم وناكسن صاحب يال ميل كستو أتشوكتان وحان دي رجينيا عافماد قب يا نبات قب إناد كسو انتهين ومركلا إيا مالين كلا إيا موضوع آد وحساسية كاسي أو كسابسن ولكن عبدمالك موسى علدون أو حبسيغا كترة عبدمالك موسى علدون وحين ما تكور رمي دونا أما سؤال اسكوي دين دونا Cabdimaalik ma xaq jirba mise waa xaq jir waxaan rajaynayaa inaad kala garanaysaan xaq jir iyo xaq jir sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad noqon doontaan kuwa su'aashan ka soo jawaaba maadaama aan anigu idin soo bandhigi doono waxyaabo fara badan oo laga yaabo inaydan fahansanayn ama aydan maqal ama aydan arkinba Cabdimaalik Muuse Coldoon maaha markii ugu horeysay ee dawladda madaxweynaha uu ka yahay Muuse Biixi Cabdi ay xidho waa markii labaad ee xarig lala soo tiigsado Cabdimaalik way hadaba Cabdimaalik markii ugu horeysay ee la xidhay waxay ahayd Abriil 18keedii 2019 iyadoo oo la soo daayay 6 bishii June 2020 waxaanu ku qaatay muddo 1 sano iyo 49 maalmood ah Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaynu iska weydiin doonaa waxyaabihii lagu soo eedeeyay waqtigaas ee lagu xidhay iyadoo oo muddadaasi lagu xukumay muddo 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah inkastoo aan wada dhamaysan waxa cafis madaxweyne lagu sii daayay markii uu xidhnaa 1 sano iyo 49 cisho oo kaliya hadaba waqtigaas Cabdimaalik maxaa lagu soo eedeeyay Cabdimaalik waqtiga waxa lagu soo eedeeyay sidaad warqadan halkan aan idin soo dhigay aad ku arki kartaan 3 qodob oo ugu muhiimsanaa 3 qodob qodobka koobaad wuxuu ahaa inay soo eedeeyeen waalidiinta arday la sheegay inuu waqtigaasi Facebooka ku baahiyay oo uu sheegay inay sameynayaan akhlaaq xumo ama dhaqan xumo uu iskuulku baray sidoo kale qodobka labaad oo ahaa inuu dacaayad ka fidiyay dawladda ama madaxweynaha qaranka oo uu yiri taliskani wuxuu hayaa talisyadii tabtii lagu hoogay amaba taliskani waa taliskii Cabdi Iilay oo soo koraya waxa uu ahaa qodobka saddexaad ee lagu soo eedeeyay Cabdimaalik waqtigaas inuu Cabdimaalik dacaayad ama waxyaabo propaganda ah uu ka fidiyay iskuulka Abaarso oo iskuulka Abaarso soo eedeeyay 3 qodob ayaa ugu muhiimsanaa hadaba Cabdimaalik waqtigaas waxay sheegtay dawladdu inaanu hayn wax cadayn dadka qancin kara ama dawladda qancin kara oo iskuulka ka arkay iyaga oo sheegay inuu sawirada ama muuqaalada uu ku baahinayay bartiisa Facebooka ay tilmaamayeen kaliya ta inuu Cabdimaalik soo dhigay sawiro arday yar oo carabka soo saaraya iyadoo dawladdu ka jawaabaysa taas inaanay cadayn u noqon karin Cabdimaalik waxa ay soo qaadatay sawirkan aad halkani ka arki kartaan oo aad wada garanaysaan inanka warbaahinta ka shaqeeya ina Bakayla la yiraahdo hadaba taasi way noqon weyday wax cadayna waxaana waqtiga lagu qasbanaaday in Cabdimaalik lagu xukumo 3 sano iyo 6 bilood oo xariga inkastoo muddadii wada dhamaysan hadana waxa uu xidhnaa 1 sano iyo 49 cisho muhiimaddu waxa weeyaan Cabdimaalik ma ka tanaasulay ama ka toobad keenay waxyaabihii lagu xidhay ee lagu soo eedeeyay jawaabtu waa maya Cabdimaalik horta ma joojin waxyaabihii eedaynta looga dhigay waqtigaas ee uu ka sii kordhiyayba kow iskuulkii horta propagandadiisii iyo hawshiisii halkii buu ka sii waday isagoo oo soo dhigayay sawiradii carabka la soo saarayay sidaad halkani ka arki kartaan waayahay Cabdimaalik sidoo kale waxa uu
wax ka sheegaa ama uu bartiisa Facebooka eedo culculus uga soo jeediyaa meesha loo yaqaano xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo uu ku sheegay inay tahay barta kaliyata ee marinka u ah dhaqan xumada ama ay soo galaan dadka dhaqanka xun ee dunida oo dhan laga yaqaano. waayahay haddaba su'aasha aynu isweydiinayna waxa weeye Cabdimaalik wax cadayna in kasta aanu wali hayn oo dadka oo dhan qarcin kara laakiinse dadka oo dhan ay tuhun fara badan ay soo food saartay oo ku saabsan arinta iskuulka Abaarso iyo jaamacadda Barwaaqo. sidoo kale xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo dadka inta badan dadka badankoodu ay ku xidhan yihiin iyada waxa ay heshay difaac fara badan markii dad fara badan oo ku xidhan oo bari iyo galbeedba iskaga kala yimaada ay halkaasi difaac u noqdeen. laakiinse iskuulka iyo Barwaaqo ah jaamacadda ayaan helin wali wax difaaca iyada oo eedeynteedii ay Facebooka aad u haysato bariyahan dambe. haddaba Cabdimaalik Muuse Coldoon ma waxa uu ku kooban yahay oo kaliya inuu la dagaalamo tacliinta reer galbeedka sida iskuulka Abaarso, jaamacadda Barwaaqo iyo xarunta dhaqanka Hargeysa oo ay yaalaan buugaag fara badan iyo agab tacliimeed. hadafkiisu ma mid intaasi ku kooban ba mise waxa uu hayaa tabtii dariiqyadii ay qaadi jireen urur diimeedyadu? jawaabtu waxa weeyaan baroorta orgiga ka weyn Cabdimaalik kama hadlayo inta aynu inagu ku koobannahay laakiinse waxa uu hayaa dariiqa ay mareen urur diimeedyadu kuwaas oo albaab u noqday mid kamid ah albaabada jaxiimada. urur diimeedyadaasi fikradaha ay xambaarsan yihiin ayuu Cabdimaalik xambaarsan yahay. cadayn buuxda haddii aan arrinkaasi idinka siiyo urur diimeedyadu waxay ka siman yihiin inay la dagaalamaan tacliinta reer galbeedka oo inagu u naqaano tacliinta maadiga ah. tusaale ahaan sida ururka loo yaqaano Boko Haram, Taliban iyo Al-Shabaab. Boko Haram oo ah urur ka dagaalama Nigeria, Chad sidoo kalena Niger ka dagaalama waxa halhays iyo hal ku dhig u ah ama magacooduba waxa uu ku kooban yahay tacliinta reer galbeedku waa mamnuuc. magaca Boko Haram wuxuu la micno yahay tacliinta reer galbeedku waa mamnuuc ama waa xaraan. waxa ay sameeyaan oo bartilmaameed ka dhigtaan iskuulada ay dhigtaan habluhu afduub bay u geystaan intaas oo sanadood ayaa qaarkood ay iska haystaan iyaga oo walibana aan eheladoodii iyo dadkoodii mar dambe xataa qaarkood aan dib loo arkin. Cabdimaalik waxa uu doonayaa inuu hirgeliyo sidoo isaguba inoo sheegay bartiisa Facebooka uu inoogu baahiyay shareecada islaamka in wadanka lagu dhaqo. sidoo kale waxa uu doonayaa inuu ka takhaluso dimuqraadiyadda waana sida ay ka siman yihiin urur diimeedyadu. haddaba ka islaamka oo dhan ayaa raba inay hirgeliyaan shareecada islaamka sidoo kale inay ka takhalusaan dimuqraadiyadda laakiinse dariiqa ay maraan urur diimeedyadu oo inta badan la isku khilaafo ama khilaaf weyn ka yimaado inay tahay dariiq aad u khaldan dad fara badanna lagu laayo. haddaba aan idin soo hordhigo qaar ka mid ah oraahyadiisa uu ku baahiyay bartiisa Facebook ee qeexaysa fikradda Cabdimaalik uu xambaarsan yahay inay la mid tahay midka urur diimeedyada. Cabdimaalik waxa uu yiri dimuqraadiyadu waa gaalnimo aan wax shaki ah ku jirin. hadalkan waxa yiri Cabdimaalik isagoo walibana si qeexaya waxa uu yiri gaalnimo waxa ay ku noqotay dimuqraadiyadu waxa ay talada iyo xukunka siinaysaa dadka oo wax kasta waxa ay gelinaysaa oo u bandhigaysaa dood xulasho iyo doorasho. talada iyo xukunka Allah baa keligii iska leh cid walba oo iskeed isu caleema saartaa kaalintaana waa cid ilaahnimo sheegatay. kuwa raacaana waa kuwa hore ilaahya ka yeeshay adeecista ay adeeceen awgeed. dimuqraadiyadda gudaheeda kama jirto wax san iyo wax xun xaraan ama xalaal waxa gudaheeda ka jira inta badan waxa ay isku raacaan ayaa sareeyo oo lagu khasban yahay. Cabdimaalik waxa uu inoo qeexayaa oo uu inoo sheegayaa inay dimuqraadiyadu tahay gaalnimo. sidoo kale waxa uu sheegayaa nimanka baarlamaanka ee u orda kursiga baarlamaanku inay yihiin niman sheeganaya inay ilaahiye yihiin waa sida uu isagu yiri. sidoo kale waxa uu sheegay Cabdimaalik dadka taageera ama u codeeya ama arintaasi ku bartaara sidii ay kursiga ku heli lahaayeen
halkaa geystaana inay yihiin kuwa ilaahya ka yeeshay, that means kuwa caabudaya oo ilaahya u haysta. marka cabdimaalik waxa uu gaaleeyay kow waana sida ay aaminsan yihiin urdiimeedyadu. sidoo kale fikradan waxaa la qabaa nin sheekh oo loo yaqaano Mustafa Caanood oo duleedka magaalada Muqdisho masaajid jooga, bal isagiina waa kana ila dhageysta. xukaamta kitaabka ilaahay diiday aan ku maamulin annagu kufaar baan u naqaanaa, iyaguna waxay yiraahdeen maya gaalnimo ma aanay gaarin, waa muslimiin, waa loo cudur daarayaa in la ateecana waliba waajib. Mustafa Caanood waxa uu inoo sheegayaa in baarlamaanku yahay gaalo, sidoo kale cid kasta oo difaacda ama taageertaana inay tahay gaalo ay yihiin iyaguna ayuu sheegaya. waana sida uu aaminsan yahay Cabdimaalik. waayahay waxaynu sii wadi doonaa hadaladiisii iyo fikradihii uu Cabdimaalik xambaarsanaa. Cabdimaalik isaga oo hadalkiisa sii watay waxa uu yiri sharci dejinta ilaahay baa keligii iska leh, isaga keligii ayaa jideeya shuruucda uu wax ku xalaaleeyo iyo midka uu wax ku xaaraantinimeeyo, waana sifo ka mid ah sifooyinka ilaahnimada. sidaa darteed adoonka kaalintaas isu cimaamada ee xalaaleeya ama xaaraantinimeeya wax aanu alla dejin waa mid isdhigay martabada ilaahnimada. Cabdimaalik markan wuxuu inagu sii adkaynayaa oo inoo sii sheegayaa inay baarlamaanku ilaahay sheegteen qofka isu cimaamada inuu sharci dejiyo ama uu ansixiyo waxyaabo sharciya inay baarlamaanku ilaahiyo iska dhigeen ama martabadii ilaahnimada isdhigeen. waa sidoo Cabdimaalikna leeyahay. haddaba waxa jirta mar Cabdimaalik uu jawaab siinayay nin wadaad sheekh masaajid haysta kaasi oo kamid ah baarlamaanka cusub ee Somaliland. sheekhu markaas waxa uu eedeyn u jeedinayay madaxweynaha oo waxay ahayd markii lagu jiray doorashadii gudoonka baarlamaanka, oo sheekhu waxa uu sheegay uu madaxweynaha ku eedeeyay inuu u soo bandhigay laaluush. haddaba Cabdimaalik oo ka jawaabaya arintaas oo u jawaabaya sheekh Sokeeye ama xildhibaan Sokeeye ayaa waxa uu yiri isagii baa ka mid noqday gole ilaahay ku haysta ilaahnimadiisa, markaas buu leeyahay waa lana laaluushay oo waa xaaraan. markana waxa uu Cabdimaalik inoo sii qeexay inuu golaha baarlamaanku yahay gole ilaahay ku haysta ilaahnimadiisa. wa nacuudu billaah. waayahay haddaba arintan oo inta badan culimadu aanay si muhiima uga hadlin ama halkan uu gaarsiiyay Cabdimaalik Muuse Coldoon aanay gaarsiin. haddaba aynu dhageysano waxa uu Sheekh Mustafa Sheekh Ismaaciil Haaruun uu kaga baxay dimuqraadiyadda ama uu ku sifeeyay waxa ay tahay. inaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaab wa sunnah marnaba laga bixi karin. wixii ka hooseeya marka waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo. idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara. dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican. wallahu a'lam. Sheekh Mustafa Sheekh Ismaaciil Haaruun waxa uu inoo sheegay dimuqraadiyaddu inay ka fiican tahay sharciyo fara badan oo kale kuwaas oo dunida lagaga dhaqmo, iyadana waxa ka fiican islaamka. waa hadalka halkudhiga u ah ee uu kaga baxay Sheekh Mustafa Sheekh Ismaaciil Haaruun. hadal fara badan oo uu ku qeexayay dimuqraadiyaddu waxay tahay iyo halka ay ka soo bilaamatay. laakiin Cabdimaalik wuxuu taagayay already dimuqraadiyaddu waa gaalnimo, waana siday aaminsan yihiin ururdiimeedyadu. sidoo kale qofka halka taga ee baarlamaan noqdaana waa gaal, ka u codeeya ee martabada geeya ee taageersan ee aaminsanna isna waa gaal. ururdiimeedyaduna waa mid ay ka siman yihiin dadkana dhiigooda ku xalaaleystaan. idinka ka soo jawaabi doona Cabdimaalik ma xaq jir baa mise waa xaq jir oo su'aasheenu ahayd. alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.